Asalaamu calaykum dhammaan asxaabta ku xiran Amjad. Kusoo dhawaada cashirkeenii labaad kaasoo inoo ahaa cashiro taxane ah aan ugu talagalnay inaan asxaabta ama walaalaha Soomaaliyeed aan kula wadaagno cryptocurrency. Haddaba waxaan kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto siina share garaysid. Mahadsanid. Haddii aan gudagalno cashirkeena maanta waxaan ugu talagalnay inaan ku baranno maadaama aan cashirkeenii koowaad aanu ku soo baranay waxa la dhaho cryptocurrency iyo waxyaabaha qofka laga rabo si uu u maalgashto cryptocurrency-ga waxyaabaha laga rabo kaasoo aan si guud u sheegnay siday u shaqeyso, waxa ay tahay iyo qofka marka uu rabo inuu maalgashto waxa looga baahan yahay. Haddaba waxaan sheegnay qofka inuu maalgashto cryptocurrency wuxuu u baahan yahay inuu exchange oo akoon ka furto. Haddaba exchange-yadaas aan sheegnay waxaa ka mid ah Binance. Hadba waxay ku xiran tahay qofka area-da joogo ama wadanka uu joogo exchange-ga ku wanaagsan ama u fiican inuu akoon ka furto ayaa u wanaagsan. So marka annaga cashirkeena waxaanu tijaabo ku sameynaynaa exchange-ga loo yaqaana Binance. Si marka aad Binance u soo kiciso waxaad ka geli kartaa laba area inaad ku qorto Google-ka inaad ku qorto Binance. Google-ka marka Binance ku qorto waa inaad hubisaa inuu yahay www.binance.com inuu yahay. Waxaa laga yaabaa inaad another Binance kale u gasho oo qolooyin tuuga ah. So marka waxaa wanaagsan inaad fiiriso website-ku inuu yahay binance.com. Haddii kalena waxaa kasii wanaagsan website-ka loo yaqaano CoinMarketCap kaasoo ah website aan cashirkeenii koowaad uga soo hadalnay si guud inaad imaado. Marka website-kaas joogto waxaad arkaysaa Binance oo ku jiro kaalinta 5 hadda markaan cashirkan duubayno. Haddii uusan ku jirin kaalmaha hore tan waxaad ku search gareyn kartaa halka waxaan ku qori karnaa Binance. So marka Binance coin kaasoo kale marka aan joogno waxaad ka dhex heli kartaa website-kooda saxda ah. So marka mar walba sababta aan website-ka CoinMarketCap marka joogno aan website-ka saxda uga soo galayna waxa waaye waxaanu ka cararaynaa scammers ama qolooyin tuuga ah. Waxaa laga yaabaa inaad kor binance.com ka aragto laakiin ay dhibaato kaaga imaado in gudihii oo noqdo website-ka Binance another Binance kale oo aan magacaas wadanin. Okay, haddii aan website-ka ku dhufano wuxuu soo baxayaa qaab noocaana. Waxaan rabnaa inaan iska diiwaan gelino aan ka furano akoon cusub aanan step by step aan isla fiirino. Haddaba haddii aadan cashirkii hore soo daawanin linkigiisa waxaad ka heli kartaa qaybta hoose ama haddii aad gudaha u gasho channelka ayaad waxaa ka heli kartaa cashirkeenii koowaad aan uga hadalnay cryptocurrency-ga waxa la dhaho iyo siday u shaqeyso. Haddaba Binance haddii aan hore uga furanin waxaan dhahaynaa register now markaa dhahno. Haddaba si wax adag ma ahin, waa aad u fudud yahay. Hadba markii aad Gmail sameysinayso kala wada mid yahay. Waxaanu gelinaynaa Gmail aan ugu talagalnay. Hadda Gmail-kaas ayaanu ugu talagalnay inaan ku sameyno. waxaad sameysanaysaa password aad u wanaagsan. Mar walba waxaa wanaagsan password-kaada inuu ka koobnaado capital letters, small letters iyo xarfo oo noqdo password adag. Okay, password ayaan u sameynaynaa. Okay, dhammaan marka password-ka inuu waxaa ku ogaanaysaa password-ka inuu ka ogolaaday wuxuu ku saarayaa calaamada tick ayuu ku saarayaa. So hadda waxaa aragnaa inuu xarfaha tick inoo saaray hal number inuu tick inoo saaray xarfaha capitalkan inuu tick inoo saaray. Okay, waxaan sameynaynaa marka inaan dhahno create account inaan ka furano. Hadda meeshan waxaa ku jiro rival ama maxaa la lahaa inuu ID-ga oo ma aragta qofka aan ku sameysanayno waa iska diidi karnaa oo optional waaye waa ka saari kartaa. Okay, haddii kalena waa caadi waa ku sii dayn kartaa. Okay, hadda anaga inaan ka saarnay. Okay, marka waxaan dhahaynaa waa create account ayaan dhahaynaa account noo fur. Okay, marka create account markaan dhaho calaamadaas box-ka ayaan soo qaadaynaa waxaana ku jimeynaynaa
kaas ay isku qaabka yihiin ama u eg ayaan si lamida ayaan ugu jimeynaynaa. Okay, markaas waxaa waaye wuxuu inoo sheegay inaanan robot ahaynin. marka hadda wuxuuna dhahay email verification inaan emailka verify kusoo sameyno. gmailki aan ku sameynay oo Bezani 13 ahaa ayaa waxaanu tegaynaa halkaan aan kusoo diyaarsanay. waxaan aragnaa inuu still verification inoo soo dirin. okay, hadda waxaan u jeednaa Binance inay inoo soo dirtay confirmation code ama verify inay inoo soo dirto. marka codekaas ayaa waxaan ku sameynaynaa Binance ayaa inoo soo dirtay inaan copy gareeno si aan verify ugu sameyno. marka waxaan dhahaynaa copy, waxaan u naqanaynaa Binance account meesha aan ka sameysanaynay. okay, marka aan ku dhahno paste. okay, paste ayaan ku dhahnay. hadda marka Binance waan furnay account-kii, waa qaybtii koowaad waxaan ku sameynay inaan furno account-keeni. so marka account-kaas maadaama aan furanay qaabkan ayaa soo baxayso. haddii aad computer ama telefoonka hadba midka aad ka galayso video qaybta dambena waxaanu kusoo qaadan doonaa markii gudahaan u galno sida loo isticmaalayo anagoo telefoonka isticmaalayna insha Allah. okay, hadda marka wuxuu inooga baahan yahay inaan sameyno intermediate verification. okay, marka horta kow Binance shuruucdeedii hore u degsanaa waxba ayay ka bedeshay. horey waxaa sharci u degsanaa dadka asxaabta qaar, dadka Soomaali jooga ama dad badan oo aanan haysanin passport ama license inay ku ekeyn kareen qayb loo yaqaano basic verification. verificationka Binance u degsanaa 3 waaye, waa basic verification, intermediate verification iyo advanced verification. so marka basic verification waa magaca iyo waxyaabo yaryar oo kooban qofka inuu geliyo. laakiin hadda waxaa shardi laga dhigay in qofka uu verification ku sameeyo ama uu iska buuxiyo ilaa uu gaarsiiyo qaybta loo yaqaano intermediate verification. so marka hadda anaga maadaama sharcigan uu ku sameysan yahay hal account ma sameyn karo inaan ku sameeyo intermediate verification. laakiin wax adag maahan, waan isku sheegaynaa qaabka loo maraayo iyo sida processka oo loo maraayo ayaan isla fiirinaynaa. so marka hadda marka verify ayuu inoo soo qoray. haddii aan verify-gaas ku dhufano waxaa soo bixi doono qaybaha 3 qayb inaan marno. marka adina waxaa lagaaga baahan yahay step by step si tartiib ah waxyaabaha meesha ku qoran iyo shuruudaha lagu sheegayo inaad step by step oo fudud aad marsiiso. hadda tusaale wuxuu automatically inuu wadankaaga inaad doorato hadba asiga kuu doorayo ama wadanka aad joogto inaad doorato waa stepka koowaad. marka account-kan waxaan ku sameynaynaa verification ayaan ku sameynaynaa. verificationkaas aan ku sameynaynana waxaa laga baahan yahay inaad keento ama aad geliso passport ama license inaad geliso. qaybta koowaad waaye. qaybta labaad waxaa waaye waa sawir wejigaaga inaad macnaha aad shaashada kaamirada ina furto ayaa waxaa sameynaysaa qaabka uu kugu hagayo inuu tusaale ku dhaho boxiska yar oo meesha ku yaalo in aad ku aadiso wejigaaga, qoortaadana aad leexjiso ama midig ama bidix ama kor hadba meesha uu ku amrayo inaad leexjiso. marka aad intaas sameyso automatically si fudud wuxuu account-kaaga noqon doonaa mid verify ah. waxaana ku tijaabin doonaa hal account ayaa waxaan ku sameyn doonaa si tijaaba insha Allah. laakiin waa process fudud inaad verify sameyso. waxaa laga baahan yahay inaad sharcigaas soo geliso passport ama license hadba qofka wuxuu heli karo iyo sawirka wejigaada oo kaamirada aad furayso ayaa wanaagsan inaad soo geliso. okay, marka haddii aad verify kusoo sameyso waxaad sameyn kartaa inaad gudaha usoo gasho, aad trade sameyso, aad lacag kusoo shubato. haddaba markii aan sameysanay oo aan account-ka qofka uu ku sameeyey verification ama uu soo maray stepka verify-ga ah aan hadda sharxeynay, waa stepka labaad oo inoogu xigo waxaa waaye inuu qofka ku shubto lacag inuu kusoo shubo. so marka haddaba 2 qaab ayaa u kala qaadaynaa. kow horta markii la joogo qofka marka wadamo qaar waxaa jira aanan si direct lacagta u shubi karin iyo dad qaar ku xiran kara bangigooda. so marka haddaba marka qofka waxaa loogu baahan yahay stepka waxaan tegaynaa depositkaas walletkaas ayaan tagnay, waxaan ka tegaynaa fiat
iyo spot ama deposit iyo withdrawal ayaan ka tagnay. so marka maadaama anaga still wax verification ma aan sameynin laakiin tijaabo maadaama ay naga tahay waxaan tagnay fiat walletkaas ayaan tagnay, waxaan kasii tagnay hadba meesha ku qorantaa fiat and spot oo deposit ah. so marka aan deposit dhahno maadaama aan rabna inaan keensano digital lacag oo digital ah si aan u sameyno investment ama coin si aan u iibsano waa inaan lacag kusoo shubanaa. haddaba stepkeeni labaad ee ah lacag ku shubashada, haddii aad hadba bangigaada director ugu xiri kartid hadba bangigaada ay ku xiranaysaa. haddii kale waxaanu tegaynaa qaybta loo yaqaana deposit by crypto iyo waxaa loo kala yaqaanaa deposit by fiat. hadda hore the first waxay saaran tahay marka horeyso fiat money ayay saaran tahay. so marka deposit by crypto ayaa loo baahan yahay. hadda wuxuu inoo sheegayaa in verification ay qasab tahay inaan verify sameyno. okay, marka aad stepkaas lacagta kusoo shubto hadda dariiqi aad u marto bacdiin stepkeena xiga waxaa waaye inaan ku dhex sameyn karno inaan wax ku iibsano. so marka si guud haddaan u sharaxno meelaha muhiimka ah, number 1 waxaa muhiim ah walletkan. marka haddii aan kala barano Binance, marka qaybtaas joogno waxaa aragtaa wax loo yaqaano overview iyo fiat and spot, margin, futures, peer to peer, bull, waxyaabahan dhan marka waa waxyaabo aad waa loo isticmaalo. number 1 annaga waxaan ka isticmaalaynaa qaybtaas loo yaqaano spotku waxaa waaye in kiribtadaada aynan waxna lagu darin waxna laga dhimin, directly aad qofka si toos usoo gadato iyadoonan wax leverage ama wax margin lagu sameynaynin aan la kordhinaynin. labadan kale marginka iyo futureska waa inaga xaaraan. culimada sida ay noo sheegaan waxay inaga yihiin xaaraan maadaama wax lagu ziyaadinayo aysan ahaynin lacagtaadii oo inta aad maalgashatay aysan ahaynin. okay, waxaa kaloo la isticmaalaa bullku waa iyadana waa qayb markii kiribta aad soo iibsato aad rabto inaad ku xareyso si aadan u arkin qaybtan hore ee fiatka ama spotka qaybta hore si aadan u arkin. so qaybtan marka wallet waa boorsadaada aad ku leedahay Binance. qaybtan kale marka aan imaano iyadana waa orderska aad sameysay spot order. mar walba spot order joog. spot order markaa ku dhufano waxaa kasoo baxayo orderada aad sameysay ama kuwa furan ama kuwa hore u gashay ama maxaa la dhahaa waxyaabahaas dhan baa kasoo muuqanayo. waxaa kaloo qaybta saddexaad muhiim ah market. marka aan market ku dhufano waa suuqi, waxaanu ka helaynaa coinanka ayaan ka helaynaa. marka market markaa ku dhufano spot market ayuu joogaa, waxaan kasii dooran karnaa fiat market markaa ku dhufano waxaa waa USDC ama USDT waaye. so marka fiat market marka aan ka doorano waxaanu ku sameyn karnaa surge coinka rabaa raadinaynaa. tusaale coinka waxaa rabnaa BTC marka aan dhahno USDT ayaa raacsiinaynaa. hadda meeshaas ayaa soo baxaya marka BTC USDT ayaa inoo soo baxayo. sidaasoo kale marka BTC USDT haddaad rabto coin like waxaan rabnaa Cardano USDT yaa kusoo baxday. so waxaa sameyn kartaa Fiverr. marka aad Fiverr galiso qaybtaas ayuu kuusoo galayaa si fudud mar walba ayaad meeshaas uga heli kartaa. marka Fiverrka ama coinankaaga aad isha ku hayso khaaska ah ayaad ka dhigan kartaa. marka market marka aad joogno coinankan mar walba waxaa imaanaysaa spotka ayaa imaanaysaa. spot marka aan joogno spot market waxaad kasii joogaysaa ama waxaad kasii gelaysaa fiat coinka aad rabto symbolkiisa. coinka aad rabto intaa kasoo helaysaa waa coin market cap. tusaale kasoo qaad coin market cap ayaan kasoo helnay, coin ayaan ka rabnaa. waxaan rabnaa tusaale kasoo qaad waxaan rabnaa coinkaasoo kale ayaan u baahannahay. coinkaas haddaan u baahannahay ama waxaan u baahannahay J-Link ayaa u baahannahay. marka coinka aad u baahan tahay short formkiisa ama waxa laga soo gaabiyo kasoo qaad Polygon oo loo soo gaabiyo Matic ayaa u baahannahay. so marka waxaan imaanaynaa marketki spot market ayaan ka joognaa, waxaan ka imaanaynaa coinki waxaan ku qoraynaa Matic markaa ku qorno lacagta inoogu jirto ama beerka aan ku rabno haddii USDT aan keensanay USDT ayaan ka dooranaynaa.
haddii BUSD iyadana waa stable coinka oo ay ka mid tahay. hadba waxa aad meesha keentay inta badan marka waxay dadka u badan yihiin USDT. marka maantikaasoo kale waxaan ka dhigaynaa Fiverr-ka ayaa soo galaya. markuu Fiverr-ka soo galo waxaa ku samayn kartaa trade markaad taabato ama aad kili ku siiso waxaa soo baxayo anagoo aan ku sharxayno qaybta dambe videoga.